السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سلامي waxaa soo idlaaday kulan cajaa'ib ah kooxda Arsenal waxa ay cagta marisay kooxda Liverpool daqiiqada ugu horeysa waxaa gool ka dhaliyay لاعبka Brazilianka ee da'da yar Martinelli waxaana uu kaga naxsaday hal daqiiqa iyadoo socoto waxaa la isdhahay Liverpool waxaa la mari doonaa cagta laakiin ma aysan noqonin waa ay soo laabtay waxaana dhaliyay Darwin Núñez gool uu ka helay Diaz oo caawintiisa lahaa balse ma aysan noqonin daqiiqadii dhamaadka 45 daqiiqo waxaa lagu daray 5 daqiiqo dheeri ah waxaana goolka kale ka dhaliyay Saka oo gool Firmino ayaana goolkii 2-2 ka dhigay laakiin ma aysan noqonin waxaana dib dambe ugu celiyay ciyaartii Rigoro ay Liverpool gacanteeda qalad ay gashay waxaana lagu ciqaabay Rigoro waxaana ka dhaliyay isla Saka waxaana ciyaartaas ku lug lahaa 2 gool waxaana ku soo ilaatay 3-2 hadii aan guud ahaan ciyaarta balse ciyaartayda socoto waxa ay laga saaray kampida horeetaba Diaz oo dhaamay laakiin ciyaar qurux badan Arteta waxa uu muujiyay dhalinyaradiisa inay yihiin inay tartamayaan tartamayaasha Premier League waxayna hadday hal dhibac ku hayaan horyaalka Premier League waxayna leeyihiin 23 dhibcood halka ay leedahay halkay ku soo xigta Manchester City laakiin ciyaartaasi waxa ay ahayd ciyaar aad u qurux badan arbitration wuxuu ahaa kuwa eedol badan loo soo jeedi doono laakiin guud ahaan waxaan ka eegnay ciyaarta Liverpool waxa ka qaldan waxa la isdhihi karaa waxay tahay shaxda Jurgen Klopp waa uu saxsanaa laakiin badaladiisa waxay ka dhigayaan kuwa aan u soo horseedin goolo Liverpool ayaa dhibaato ku ah kuna baa ciyaaraysa Premier League in gool lagu hormaro waxayna ku qasban tahay in ay raadiso goolkaas sidii ku soo celinayay laakiin bariyahan waxaan isleenahay waqtigii waayay Liverpool ayaa burburay Jurgen Klopp waxaana uu wacan Jurgen Klopp qaladiisa oo sameynaya haddii intaas aan ka gudubno kooxda Manchester City ayaa shal ciyaarta waxayna ku itlaatay 4-0 waxaana goolka uu dhaliyay Haaland ayaa goolkii qaybta dambe dhaliyay Haaland ayaa kulamo gool leh 9 kulan oo Premier League oo ciyaar waxa uu dhaliyay 15 gool taana waxay ka dhigan tahay ciyaaryahanka ugu dhaqsiyaha badan ee EPL ku cusub dhaliyay 15 gool waxaana doonaa kooxda Liverpool oo ku ciyaaraysa ligada Anfield soo dhaweey doonta Man City ayaana u ah marti waan arki doonaa halka Diaz uu dhaawac ka maqan yahay hadii uu soo laabo doono hadii aan ka gudubno kooxda Chelsea ayaa 3-0 dirtay Wolverhampton halka Mason Mount oo 2 gool ka caawiyay halka Aubameyang ciyaartaas ka dihaanba aba la keeninba waxa uu ahaa ciyaar ajaayib ah tababaraha ku cusub kooxda Chelsea waxa uu hadda guulsan ku gaarayaa 2 Premier League iyo 1 Champions League oo gaaray waxayna ka dhigan tahay waxa ku bilowday waayo qurux badan waxay ahaayeen ciyaar ajaayib ah kooxda AC Milan ayaa Juventus waxay kaga adkaatay 2-0 waxaana lagu ciyaaray Liga San Siro waxaana soo buuxiyay taageero aad u qurux badan laakiin AC Milan waxay muujisay waxayna iska meertay guuldaradii ka soo gaartay kooxda London ka dhisan ee Chelsea kulanka Champions League ay 3-0 loo adkaaday laakiin waxa ay la tacaalaysaa dhaawacyo haysto ciyaartoy badan ay ka maqan yihiin AC Milan ayaa dhigay Juventus agta marsisay waxay ka dhigan tahay horyaalka oo kulubadiisa ugu horeeyay la ciyaaray Inter iyo Juventus ay ka badisay taana waxay ka dhigan tahay hadda waxay AC Milan tiri aniga waxaan qayb ka ah loolanka horyaalka maadaama 20 dhibcood ay leedahay halka Napoli ay ciyaari doonto iyo Napoli iyadana ay ciyaar doonto maadaama hadda ay maraysa 1-1 halka Atlanta ay ku idlaatay 1-1 waxayna taas ka dhigan tahay hadii Napoli sidaan baraji ku dhamaato in AC Milan laga saaray doono 1 dhibic halka Inter Milano iyadana ay soo badisay ku adkaatay 2-1 waxaana 2 gool kamid ah dhaliyay Tico guud ahaan waxaan soo afmeeri doonaa falqayntii aan ka bixinay hadii aad ka heshay la garee asxaabtaada nagaasi waad ku maasantahay la joogaaga waxaan ku leenahay maalin wacan